ربع سكره 20 kun baa rubac lagu gataa naftayda iyo nafta hooyadii kale waxaan dadka kale waxaan iri naftada aad koobka shaan ku soo mi jiray marka ka soo ku bixi jiray aniga hooyadii oo way markaas ay lafteedu qof iska caadi ahayd cid baa darisna ahayd gabar iyo hooyadeed gabadh waa handicap xaafad meel ma ku soo wada qaxna daris ma waan mid guri hooyadii anigu aan mid waa ka soo qaxay cid waa ma haystaan baa la yiri cidaan dadka laga magaalada ka cararay bayna ka hareen oo waxa la yiri waxa tab u sheegi karaan waa la murugooda marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته أدي أدبان إذن سلامة يا وحنا رجينا دمانتين إناد في عنتهين ما شاء الله سولو هذا كل سولو هذا برنامج كلا وقارة وإنه كجاهد للدولة لقولن كماما آمنة حاجة علمي ومتقنة وين هيئة SSWC هيدا وحا أي كشقي ثابت بعدين تعروضها إيو هويوين كالصومالية حرونتودا ayaa maanta joognaa soo booqana waad mahadsantihiin insha Allah taala idinka soo dhawaado ila soo dhaweeyo maama Aamina habar soo dhaw waa mahadsantu waa dhaw ma sha Allah bal waxaad iiga warantaa waaye aragnimadaada inta aad hawshan ku soo jirtay bismillaahir rahmaanir rahiim Suhayb waa mahadsantahay runtii waana aan ku faraxsanahay inaad nagu soo booqato xarunta SSWC maxaa yeelay gabdhaha Soomaaliyeed oo wariyayaasha ah oo maxay ku howlan meediyaha runtii aad baan u taageeraa una jeclahay maxaa yeelay waa qayb muhiim ah marka adiga iyo gabdhaha kale waa idin hambalyeynaya ururkan waxa la yiraahdaa badbaadi haweenka iyo dhalaanka Soomaaliyeed haweenka la hormariya marta haweenka hore dhalaanka ilaa iyaga dhalay hooyooyinkii ah marka afka ajnabiga lagu hadlana waxa way Safe Somali Women and Children waxa la aasaasay muddo hore wuxuu ku yimid duruuf baa keentay oo markii dalka uu burburay dhibaatadu dhacday ayaanu gabdhaha Soomaaliyeed oo dadkii ka faa'iideystay waxbarashadii dalka ka jirtay ama jaamacadaha ahaadeen ama waxbarashooyinka kale ha ahaadeen oo dalka qabiil u qaybsamay ragaha diracyadaha qoriyo inta qaateen dibkii la ogaa oo hadda laga sheekeyn karin ugu dhacay baan waxaan u baahanahay wax ka gedisan waxa socdo waxa dhibaatoonaya oo markasto ama dagaal dhaco ama abaar u dhacdo ama wax dhacaan haweenka iyo dhalaanka ayaa weey waxa ay dibkaas ku soo hoobanaya marka hay'adu waqtigaas la aasaasay waa cimri badan buu leedahay 1992 baa la aasaasay waa ka weyntaan u maleynaya hay'adu adiga hadda intii lagu dhex jiray wuxuu mar hadaad adiga shaqo u istaagin oo aadan u istaagin inaad shaqayso kuma challenge la kulmaysid dib la kulmaysid caqabado marka shaqada lagu jira caqabado iyo fursado iyo way aragnimo iyo waxtar iyo wax ay soo baxaan marka inta aan ku dhex jirnay fursado badan waa maxay la kulanay caqabado badan waa la kulanay alxamdulillah rabbil caalamiin hada ururku wuxuu ka maxay ka howlgalaa inta badan gobolada dalka Soomaaliyeed xarunta ugu weyn wuxuu ku taalaa magaalada madaxda isteedada kalena xarumaan ku leenahay oo ka shaqeyno waxa ka dadka wax loo qabto oo maxay haweenka dhibaataysan ama aqoonta la siinayo ama kuwa lagu xadgudbay oo tacadiyada kala gedsan la kulma ka sokow dhalinyaro shaqaysa oo shaqa ka abuurantay ururka shaqa abuurkaas dhalinyarada siinaya dad badan oo dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isku jira ayaa ka faa'iiday oo ka shaqeeya marka waxyaalo badan oo marka caqabado iyo fursado badan waa ururku leeyahay ma sha Allah maadaama muddo badan aad soo jirteen dabcan aadna u shaqaysaan hooyooyinka Soomaaliyeed iyo caruurta aad caawisaan waxyaabii ugu cajiibka badnaa oo aad soo aragtay hooyo ahaan waxyaalaha waxa horta markii aan sameynay nature-ka ururku ku sameysmo waxay ahayd dal colaad ay ka taagan tahay oo colaad ay dadkii qabiil isku colaadsadeen urur sameynta iyo shaqada urur sameyntuna waa nagu cusbeedo dalka dal military ahaa military dalka xukumay dawladii dhexe oo dalka u shaqeynaysana ayada baahida dadka ka bargareyn jirtay dadkii markuu cidlada ku soo baxay baa wax wada mucjiso oo cusub baan shaqada ka dhex bilownay marka
caqabado badan oo dhibaatooyin badan oo lala yaabo haweenkii oo loo geystay maxay tacadiye kala gedisan iyadoo aysan jirin fursado ama caafimaad ama sharci station magaalada ma lahayn oo stationada waa la bilaqay waa lagu kala tagay isbitaal magaalada ma lahayn isbitaalada waa la bilaqay waa lagu kala tagay aqligaaga marka gadaal ugu laabo ummad gaaraysa dhowr milyan meel ay ku nooshahay oo station lahayn kala celiya hadii dhibaato timaado oo isbitaal lahayn hadii wax maxay dhacaan dadkii la geeyo oo hayo bini aadan ku nool yahay dagaalkii uu dhamaan oo wali socdo wax socda oo ama xayto oo bangi furnayn oo aan xafiis furnayn oo aan dekado furnayn oo aan aeroport furnayn oo wax furan aan la arag aeroport waxa malay mar dambe wax la isku gungunto baladoogle iyo halkaas duurka la aado diyaarada qardasho yar yar la keenay halkaas marka meeshaas waxaan ka bilown inaan bal dadka inta badneed waa carareen uma cararin fulinimo uma cararin maxay inaysan dalka iyo dadka u naxayn waxay u carareen qofba sib u cararay cararka xataa la cararaa qofba si u shoogay qof naftiisa in loo dulu ka baqay qof markuu arkay goostiga meelaha filmada lagu metelay magaalada u ekaat markii aan gadaal u raacno waqtigaas aan ka hadlahayo iridda hadaa ka baxdo galabkii waxaan xaroon jirnay 10 saac hadaa magaalada la soo aado transportation male lugba baa lagu adeeganaya lagu socdo dhalin yar baan hayno marka lugta waxba nooma dhiman lugta inta ku socota amaan meelaysido madfac baa iska socday muddo 4 bilood oo imtixaanaho qofka dad baa wali maqan inay dhinteen inay noolin laakiin qofka saacadan maqan waa dhintay magaaladu aadama soo laabo marka nolol caqabada nolol saas halkaas saas u adag baa hawsha lagu bilaabay marka halkaas caqabado badan baa ka helay koow iyo lama dhigi karo laakiin wax naftu ay ka naxdo ku taalo kugu noqon la hadda marka dib u malacsata dhahdaa waxyaalaha ku taalada u daran waxay tahay gabadhiyo foolanaysa oo ilmo walba si kuma soo baxayaan sidii ay la rabo inuu ku soo baxaan kuma soo baxayaan maleys meel gula tacaamulana male isbitaal male wax ku taalay leedahay gabadhii oo noqotay u noqotay vulnerable waxay cuni lahayd ku taalay leedahay waxyaalihii ugu darnaa waxay ahayd soon baa dhacay markii dagaalkii dhacayba markiiba soon baa noo soo galay wax la cuno oo banaanka ka yimaada wixii dekada joogan waa lagu kala baxay sokor aniga shaahan aad u jeclaa sokor male sokor waa la waayay rubac sokora 20,000 baa rubac lagu gataa naftayda iyo nafta hooyada kaliya dadka kale waxaan iri naftadeena aad koobka shaan ku soomi jiray marka ka soon ku bixi jiray aniga hooyada markaas ay lafteed qof iska caadi ahayd cid baa darisna la ahayd gabar iyo hooyadeed gabadh waa handicap xaafad meel ma ku soo wada qaxna daris ma waan mid guri hooyadeed anigu aan mid waa ka soo qaxay cid waa ma haystaan baa la yiri cidaan dadka laga magaalada ka cararay bayna ka hareen oo waxa la yiri waxa tab u shiri karo waa la murugooda marka aan lafteed waxa ma hay waa la is dhacay wax la yaab iska yarba laakiin waa la murugooday waxaan ula murugooday mar dhibkii baan wada qabnaa oo maxay wax la'aantii waa wada joognaa marna waa waayeel habartuna xoog ma leh gabadheena waa handicap aqli ma leh waa aqli ma haystaan mar wax ehel ma joogo oo waa marka waxyaalaha waa markaan nolosha ka hadlay waxyaalaha ku siinaya in maxay aad murugada kugu reeba waxaasa kamid waxana aad ka qaban karin adigu qofka xabadiisana kama dhigi kartid dadka soo caray ma taga ma celin kartid waxa dhacay waxaan kartid waa xanuunsanaysaa marka dib gaar ah nagu maxay nagu reebtay marka urku taalooyinka aan ku dhex jiro waxyaalahaas kamid qof aad waxba u tari karin oo u dacayaysan qof aad ka reebi karin inaad aragta dibkeeda leedahay marka waxyaalo badan baan soo aragnay oo dagaal laga soo taga taas hadda uu la joogo waqtiga kan xoogo isbedelna dhacayo sidoo hore aad iyo aad looga fiican yahay burburka kadib maxaa la kulantaan runtii hadda waxa iyo caruurtaba waxaan la kulannaa sida dadka ay u noolin uma noolin sida dadka caadiga ah dawladnimada dadku ma ogta waxa la isku barbar dhigaa
dad dowladnimeedu u socoto annaga dowladda dariska hata ma tartami karno because 60kii aan ugu xornimada qaadanay Afrika 60kii wixii ka bilowday xorooday 60kii 62 64 63 baa la xoroobay inta dowladdu waa korayeen adduunka annagu waa dunnay gadaal baan u laabanay marka waxyaalaha aan maxayto hadda meesha aan joogno anigu waa ku faraxsanahay marna waa ka naxaa marna waa ku farxaa mar waa ka naxaa oo adduunka la mid ma ahin oo dadku say u yihiin iyo waxa dadku ka fakaraya standardka la rabo inaan ka kacno ma ka kacayno qofka kule oo horta maxaa idinku u sameeyaan war waxaan islaamaha hore Abraham beentooda gaada lacagta uga qaadanayo oo waxba la ku haystay gabar baa la magaciisay war waa been waxaan ka naxaa marka qof weyn oo mas'uul ah oo aan ka warqabin dhibkii ku dhacay qofka kale dhibka adiga kugu dhaca hadaanan ka warqabin oo qof kaaga warqabo maaha qofka inaan ku caayo waxay leedahay khayr Allah siiyo waa dadaaleen ilaahay dadku waxay laakiin in la yira la inkar denial la inkar war waxaas ma jiraano maxayto lasaan lama sameeyo saan uma dhaw waxyaalo badan oo aan rabaa afkayga inaan ku sheego aan rabin wax ka naxaa meesha aan joogno naxariis la'aanta waxa raama dagaalkii iyo wixii dhacay iyo madficii baa idin ka qaaday bini aadanimada iyo naxariista in dadku loo naxariisto marna waa farxaa oo waxaan ku farxaa meesha aan ka nimid waa dunnay faynuusan loo dantay waa dunnay waxba ma communication mala waxba mala meelad la socoto mala adduunka waa bug waxaynay hadda waa soo kacanay waa kanada geed halka warkaan ay iga duubtay daqiiqada meesha la gelinaya isbitaaladu waa kuwan alxamdulillah ayama dhawto magaalada xoogaa qalalaasay ee ka dhaceen kar hore waxaan dhahaa waa iga dhigtay aniga moogtaa wardad baa kaliya laga miira gabar baa waxay tir marka aniga isma og waxaan sheegay adiga kaliya kaaga dhigtay dad kaliya laga miira qalbigaaga marka u sheeg qof kaliya xanuunayn oo kaadidii uga soo bixi karin sida caadiga oo makiinada soo laga soo saaro nafiso qof waa nafisa marka la geeyo gabar jiran baan geen jirnay hadii laga cayriyo ninka ka dhow ka waxayna baashi ka war ani marka culays baa ifuula gaara hadda dalka alxamdulillah rabbil caalamiin waa ugu hambalyeynaa ma hadda Allah iska leh waxaan ugu hambalyeynaa dhaqaatiirta dadkii wax bartay waa u naxeen dalka waa u soo laabteen wadnaha laga qofkii laga qalahayaa kaliya baa laga waxaynaya xoogaa dadka caadiga ahaa baan hadda u eegno ku farxaa markaan intaas arko marka wax waa isla socdaan waa iska bahayaan wax waa iska dumarka badan idin yimaada maxay ka cawdaan oo dhibanayaasha dumarka horta waxa u dhib badan dumarka xiriyaha qaxootiga halkee barakacayaasha aad maqashay markii dawladdu duntay dad baa barakacay waa la isku soo dhaxyaacay waa xiriir dawlad waxay galeen guryaha dawladda xafiisyadii iyo wixii baa la iska dagay ilaa dadku guryo ma wada lahayn ma wada haysan waa ku noolaayeen ilmay ku dhaleen waa lagu aroosay waa lagu magaciisaysay mar dhexe oo dawladnimadu markay bilaabataa waxa dadku guryahooda u soo laabteen qaar dadka lahaa qaar dhismo dawladeed dadku waa laga bixiyay marka aduu marka caaw halkan deganada meel kale lagu baraka cusub hadan ku bilaabanayo waxa markay jooga xiriyaha ayeeyo qof dhashay isagoo ku dhashay because dadka school wabdhu inta badan ma aadan gabraha iyagoo yarar baa la guursadaa laga yaabay 3-4 sano inay jirto markii dagaalkii uu dhacay maanta waxay jiri kartaa waa 37 sano 15 sano lagu guursaday badashu ayeeyo wali xiriirka marka inta halkaas ka qaxad halkaas u shaqo halkaas u shaqo hadba meesha waa si durkahaya qaxootigii dadkii marka horena waa base bay u ahaayeen dad cusubna waa yimaadaan waxa laga soo qaxaya abaar waa la imaanaya xamar waa hooyadii dalka meel kasta qofku haduu koonaha ugu shisheeyo dalka wax ku dhacaan intuu halkan u sheegsanay waa magaalo madaxdii waa hooyadii dalka waa meel Soomaali ay wada leedahay oo qof walba uu guri uga dhisan yahay oo qof walba dadka inta badan oo awowgiis ama guri kula ama iyadiis kula ama waa wada leeyahay xamar waa meel la wada leeyahay meeshaas la soo higsanaya marka qof walba uu soo aadaya ama ha ahaat iftiinka hadda gaarka oo ka shidan waa magaalo madaxdii waxa dawladda baa joogta marka qaxootiga ma yaraanayo waa soo saacidahaya waxay ka cabanayaan marka
caqligaaga gadaal u raac qofkaanu ayayo ku noqday oo iyadu iskool helin oo goor ay dhashay oo gabadh cunuga sii dhashay aan helin والله إيمانك حتى هيئة بإيمانك حوجة بيها لتسين هيئة كلا إيمانك صور لعبة لو كان هيئة كلا متذكر قرب وحكاره وده أدم ده هيسيبوا حاسر وحاسنا مرة بأوبشن ببنيه عنده كوتاج مركا ولم مهلين دولة نبدين مجارين إن يدتكي عرضوا كده يعني أي أرورسه ولم مجارين دولة لفتة إذا دوحة هيد ده لا دع كترته ولي دولة نبدي بان حيته ولا دالية لكن ما ماشي للربي ودولة أنا واحد حسوس أبو حد عاي تضواتين أفرت أبار بعد عدد دولة وحنا كانت روش كلا كان ديار ده لوجس قاعد قفك أرجوسي رتجيس جيتك بحيث أقل كيسي ويلش يسوقفك أنت ديار لوجس قاعد لكن دولة أسكرتي علمي سكول سكندرياش جامعة ولا شقال ولا استاج دولة مركب حوك لا أساسي كل كده وحين كرتوحة كار مالها مركب وحكد عن يمن يهدي وحكد عن دولة ولا قرمجر دولة أوهرة بكوس يمن درس بانهاي حتى مركب ما أنا جارين أنا إن أنا بهذا يدي كوبنا دولة أنت قحوتين نو شوكته أنت أسا شوكته حاجة قري هالكسر لقى حاجة هالدش حاجة هالسي وردية security كود عفمات كود الماء إسكال الله دقتك لا كان 74 كدتك كجيمد حريها قحوتي ولا سوق لي قاربة رخاتير وحي برتن لكان إسكال بالله بلاب ولا كفائدة مركز مال إسكشوا بقية تقلوا دقين مشكلة هذا هذا dhismahan casriga idiin muuqda waxaa hirgelinaysa shirkadda Marwa Homes gurigu waxa uu ku yaalaa xaafadda South-Sea ee wadada Orishibaara gurigu waxa uu ka kooban yahay 4 qol iyo qolka shaqaalaha 2 qol iyo fadhi oo ah guryaha alaabta lagu kireeyo ee faanishka waxa uu leeyahay parking 2 wiish ceel matoor iyo supermarket agaarka guriga waxa ku yaala masaajidyo iskuulo iyo waliba isbitaallo shirkadda xafiiskeedu wuxuu ku yaalaa xaafadda South-Sea daarta Taha Heights dabaqa 14aad wixii faahfaahintaas dheerna waxaad kala xiriiri kartaa eber 722 69 amaba eber 7 eber 69 Marwa Homes Limited horseedka shirkadaha dhismaha